kooxda Newcastle United soo bandhigtay kulan ka mid ah kulamada ugu fiican xilli ciyaareedkan kooxdu kulamada ay ciyaarto haday noqoto kulamadii koobabka iyo sidoo kale kulamada horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa guul darro soo gaarsiisay kooxda Manchester United. Haddaba kooxda Newcastle United ayaa 2-2 kaga badisay kooxda Manchester United waxayna kooxda Newcastle United ku soo gashay sidaas kaalin saddexaad ee horyaalka Ingiriiska ee Premier League inkastoo labada kooxood ay isku dhibco yihiin oo labada kooxood ay leeyihiin min 50 dhibcood haddana kooxda Newcastle United waxay kaga fiican tahay daafaca sidoo kale labada kooxood waxay iskaga mid ka yihiin goolasha. haddaba kooxda Newcastle United oo haysata daafaca ugu fiican horyaalka Ingiriiska ee Premier League oo kooxda Newcastle United xilli ciyaareedkan horyaalka Ingiriiska ee Premier League waxay ciyaareen 27 kulan waxaa laga dhaliyay 19 gool oo kaliya. Manchester United ayaa ku fashilantay inay gool ka gaadho kooxda Newcastle United kadib markii kooxda Manchester United bishii gudaheeda ama bishii la soo dhaafay ay kooxdu ka qaatay koobka iyo Carabao Cup-ka kooxda Newcastle United. dhinaca kale horyaalka wadanka Spain ee La Liga kooxda